shirkan oo muddo 4 cisho ka socday hotel ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxa gabagabadiisii ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada wasiirada wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada qorsheynta qaranka macdanta iyo biyaha diinta iyo awqaafta maayarka caasimadda Hargeysa marwada koobaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka Norway iyo 40 xubnood oo ka kala socday 40 wadan oo qaaradda Afrika madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ka hadlay halkaasi ayaa waxa uu mahadnaq ka soo jeediyay dadkii iyagu shirkan soo qaban qaabiyay isagoo oo sheegay in haweenweynaha Soomaaliland iyo guud ahaanba haweenka dunidu ay door ballaaran oo aan la dafirin karin ka qaateen horumarinta iyo nabadeynta wadamada Afrika waxa kale oo intaasi ku daray madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay Soomaaliland wadan muddo 20 sano ka badan nabdoon oo horumar ballaaran ku talaabsaday isagoo gargaar shisheeye ka helin wadamada dunida gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo isaguna madashaasi ka hadlay Soomaaliland sheegay inay sharaf u tahay in lagu qabto shir caalami ah oo lagaga tashanayo arrimaha qaaradda Afrika waxaanu gudoomiyuhu isagoo tibaaxayo horumarka Soomaaliland isbarbardhig ku sameeyay wadanka Soomaaliland iyo wadanka aynu jaarkanahay ee Soomaaliya isagoo Xuseen Soomaaliland ay ku guuleysatay in ay mideyso ummadeeda hirgelisana doorashooyin xor iyo xalaal ah waxaanu rajo wanaagsan oo ku saabsan qadiyadda Soomaaliland ka rajeeyay shirka dhawaan lagu qaban doono magaalada London ee wadanka Ingiriiska wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka mahad celiyeen qabanqaabada shirkan waxaanay tilmaameen in haweenka Soomaaliland ay door ballaaran ku lahaayeen kobcinta iyo kor u qaadida maqaamka Soomaaliland ay dunida ku leedahay waxaanay ku guubaabiyeen in ay sii wadaan dadaaladaasi wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Marweylahan Maxamed Jaamac ayaa iyaduna ka warantay doorka haweenku ay ku leeyihiin bulshada dhexdooda iyadoo tilmaamtay in haddii la garab istaago ay noqon karto mid midadhal Soomaaliland ku keenta Soomaalilandna talaabo horumar ay ku talaabsato mas'uuliyiin ka socday ururada qaramada midoobay IGAD iyo ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka Norway ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay iyagoo ka waramay sida ay hay'aduhu mar walba uga qayb qaataan horumarinta bulshada geeska iyo guud ahaanba dalalka Afrikaanka iyagoo xusay in dawladda Soomaaliland horumarkan ay gaadhay uu yahay mid mudan in dunida loo bandhigo waxa shirkan oo ay soo qaban qaabisay dalada nagaad madaxda gabagabadii lagu weydiiyay su'aalo ku saabsan qadiyadda Soomaaliland